الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إلهي سبحانه وتعالى hanuunku waxa uu ka dhigay nuur qof allaala qofka uu doono qalbigiisa uu ku tuuro walaakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina. hanuunkan qof allaala qofkaan doonno oo aan hanuun la doonno ayaan qalbigiisa ku tuurnaa buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, hanuunka qof kasta oo annaga naga mid ah waa inuu dalba, waa inuu raadiyaa, waa inuu ilaahay ka baryaa subxaanahu wa tacaala. allaahumma inii as'aluka alhudaa wاltuqaa wاlcafaafa wاlghinaa. nebiga ku ducaysan jiray sala allahu calayhi wasalam. ilaahow hanuunaan kaa barya, ilaahow hanuun isii, ilaahayow hanuun ayaan u baahanahay. walaalayaal, hanuun baa naga maqan. dad badan oo annaga naga mid ah ayaa waxay isu haystaan inay hanuun ku taagan yihiin ayagoon markaa hanuunsanayn. wayaxsabuuna annahum muhtaduun, waxay u maleeyaan inay hanuunsan yihiin, waxay isku maleeyaan jidkii khayrka inay ku socdaan. waman yacshu can dikri الraxmaan nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin. ilaah wuxuu leeyahay subxaanaه wa tacaala, qof allaala qofkii ka jeesta waman yacshu can dikri الraxmaan, allaha raxmaanka xuskiisa, qur'aankiisa, diintiisa, qof allaala qofkii dhinac mara, qofkii ka jeesta, qofkii raaci waaya, qofkii aan rabin oo naca. waman yacshu can dikri الraxmaan nuqayid lahu shayطaanan, shaydaan baan la xiriirinaynaa, shaydaan baa saaxiib looga dhigaa, shaydaan ayuu wadaay leeyahay buu dhahay ilaahay subxaanaه wa tacaala. nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin. qariinkiisii waaye, waa wadaygiisii, waa saaxiibkii uu jidka la maro, waa saaxiibkii uu la qadeeyo, waa saaxiibkii uu magaalada u raaco, waa saaxiibkii uu talada ka qaato. fahuwa lahu qariin. muxuu samaynayaa? wainahum layasuduunahum can الsabiil, wuxuu ka jeedinayaa jidkii toosnaa, markaasay isku malaynayaan inay hanuunsan yihiin. hanuunku xaalkiisu waa sida, laakiin mar allaala markay naarta arkaan ayaa waxay jeclaanayaan inay ahaan lahaayeen kuwa hanuuna. ilaa cadaabka ay arkaan ayaa waxay leeyihiin haddaan ahaan lahayn kuwa hanuuna, low annahum kaanuu yahtaduun, inay hanuuni lahaayeen oy khayrka iyo wanaagga ku socon lahaayeen, taasay markaa doorbidi lahaayeen, way jeclaan lahaayeen. walaalayaal, hanuunka waa waxa masaajidka ku keenay, hanuunka waa waxa kugu kalifay inaad salaad dukato, hanuunka waa waxa sabab kuugu noqday inaad soonto, hanuunku waa waxa gabadha sababta ugu noqotay inay xijaabato, xumaanta ay ka tagto, xanta ay iska dayso, rabbigeed ay u soo rujuucdo. kaa waaye hanuunka. saa darteed hanuunku waa shay qiimo badan, laakiin qofkii raanaa ma heli karo. qofkaad jeceshahay ma siin kartid,
qofka aad jeceshahay ma hanuunin kartid rabbi ayaa yidhi subxaanaه wa tacaala innaka laa tahdii man axbabta rasuulkii allow qofkaad jeceshahay ma hanuunin kartid carruurtaada waad jeceshahay xaaskaaga waad jeceshahay waalidkaaga waad jeceshahay asdiqadaadii axibadaada waad jeceshahay hanuun ma siin kartaa waa maya lacag waa laga yaabaa inaad siiso raashin waa laga yaabaa inaad siiso waxaad dhaanto waa laga yaabaa inaad siiso laakiin hanuunka maya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa la wariyaa adeerkii ayuu ag fadhiyey adeerkii ayaa sakaraad ahaa adeerkii baa wax badan gacan siiyey adeerkii ayaa diinta u kaalmeeyey waa abi taalibe markii gebagabadiisii la gaaray walaalayaal oo sakaraadkii soo koray ayuu nebi moxamed u yimid sala allahu calayhi wasalam adeerkii wuxuu rabaa inuu hanuuno wuxuu rabaa inuu hidaayada qaato wuxuu rabaa inuu ilaahay mar allaala markuu la kulmo janno ilaahay agtiisa uu ka helo waayo qofaan hanuunsanayn oon hanuun ilaahay la tegin agtiisa janno ilaahay ma helo sababtu waxay tahay hidaayada iyo hanuunka waayo waxa qofka ku hanuuniya jannada ilaahay inuu gaaro ihdina الصiraaط الmustaqiim صiraaط aladiina ancamta calayhim hanuunkaa lagu gaara jidka dadka loo nimceeyey hanuunkaa lagu hela nebiga salى اllahu calayhi wasalam asagoo nebi hidaaye ah nebi naxariis ah nebi khayr badan ah ayaa haddana adeerkii oo gacan ku siiyey wax badan u kaalmeeyey wax badan ilaahay subxaanaه wa tacaala diintiisa inuu baafiyo sabab ugu noqday ayaa maanta sakaraad ah xaggee jiifa meeshuu ku dhiman lahaa xaggee jiifa meeshii sakaraadka uu ku ahaa meesha lagu dhaco oo lagu dhimanayo oo qofku uu ku ruux baxayo kama kici karo kama istaagi karo kama carari karo ilan geeridii baa timid aynamaa takuunuu yudrikkum اlmowt walow kuntum fii buruujin mushayada meel kastood ku sugan tihiin meel kastood ahaataan meel walbood joogtaan buu yidhi allah subxaanaه wa tacaala geeri way idin asiibaysaa dhimashadu waa idin qabanaysaa xataa haddaad ka gashaan buruuj dhismo iyo guryo la adkeeyey saasuu markaa ilaahay tilmaamaa subxaanaه wa tacaala adeerkii waa sakaraad sariirta meydkuu jiifa uu ku sakaraadaya nebi moxamed wuxuu la jecel yahay inuu janno helo wuxuu la jecel yahay inuu hidaaye qaato wuxuu la jecel yahay inuu kelimada tawxiidka afkiisa ku dambeeyo waa ag yimid adeerkii asagoo dhahaya yaa cammi adeerow laa ilaaha ila allah dheh laa ilaaha ila allah ku hadaaq laa ilaaha ila allah afkaaga ha ka soo baxdo laa ilaaha ila allah dheh adeer laba ninoo kaafiriinta ka mida ama saddex oo meesha fadhiya ayaa waxay u soo jawaabeen ama ay ka ficil celiyeen nebiga hadalkiisa ninkii nebiga uu la hadlay uu yidhi laa ilaaha ila allah dheh ayay dhaheen ma waxaad ka leexanaysaa ood nacaysaa oo maanta aad rabtaa inaad ka boodda miya awowayaalkaa diinkooda aaway awowayaalkaa diinkoodii nebiga waa ku celiyaa sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh hadalkiisa ugu dambeeya qofkuu laa ilaaha ila allah noqdo jannada ilaahay buu galaa subxaanaه wa tacaala miftaaxii jannada waa laa ilaaha ila allah miftaaxii jannada ilkaheedu waa camalka saalixa ah waxa qofka laa ilaaha ila allah loogu celcelinayo oo mar walba loo leeyahay iska burinin macaanida laa ilaaha ila allah qaado waxaa la rabaa jannada mar allaala markuu tago inay jannadu u furanto albaabka jannada inuu maftuux u noqdo saana markaa uu ku galo war albaabkaa xiran furihiisa furo aan ahayn haddaad wadato oo aad la timaado oo aad saaka ku soo ilowday furihii dukaanka guriga ood furo kale soo qaadato kuu furi maayo maantoo dhan waad ku celcelinaysaa maantoo dhan qiiq iyo qaaq buu leeyahay ilaa inaad noqoto guriga aad aaddo oo aad furihii soo qaadato ood mar labaad dukaankii timaado ood isku dayda inaad furto maahane laakiin aakhira haddii la tago jannadu ay kuu furmi weyso meel loo soo noqdaa ma laha jannadu hadday kuu furmi weyso qufulkeeda lama jebiyo jannadu hadday kuu furmi weyso lama boodo gidaarkeeda jannadu hadday kuu furmi weyso naartaa kuu furmaysa
hadday jannadu kuu furmi weyso gurigaagu waa naarta. allah naga badbaadiye. walaalayaal wax badan aan dadaalno, hidaayada iyo hanuunka aan qaadano, aan rabbi ka barina subxaanahu wa tacaala. hanuunka allah bixiya, ilaahay ayaa qofkuu doona ku manaysta. hanuunka ilaahay gacantiisuu ku jiraa, waa siiyaa qof allaala qofkuu doono. war qofka nafsadiisa raaca oo ilaahay alla ka dhigan waaya, oo rabbi amarkiisa qaadan waaya, oo ilaahay amarkiisa dhinac mara, wuxuu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala inay u sugnaanaysa indha daboolan, qalbi qufulan. faman yahdiihi min bacdi illaah, war yaa hanuunin kara, war yaa toosin kara, war yaa jidka mustaqiimka raacsiin kara ilaahay gadaashii subxaanahu wa tacaala. inaan hanuunka alla ka dalabno oo aan la jeclaano ummadda inay markaa hanuunaan waa shay muhiim ah, aad iyo aadna loogu baahan yahay. adeer laa ilaaha ila allah dheh. adeer si aad ilaahay agtiisa khayr ugu gaarta, yaa cammi qul laa ilaaha ila allah. saasuu u kortaagan yahay, saasuu ugu dadaalaya. hanuunkuu rabaa inuu qaato, hanuunkuu rabaa inuu raaco, hanuunkuu rabaa inuu ku socdo. laakiin gebagabadii gaaladii meesha fadhisay markay ku guulguulayaan oo ay leeyihiin ma waxaad nacday oo aad ka leexanaysaa oo aad maanta ka tagtay oo aad maanta dhinac martay diintii awoobayaalka, hidda iyo dhaqan wixii loo lahaa, abyo isir wixii laga soo gaaray way ku wadeen. hadalkii ugu dambeeyey, oraahdii ugu dambaysay, halkii ugu dambeeyey afkiisa ka soo baxay odaygu wuxuu ahaa inuu yidhaahdo huwa calaa millati cabdilmuطalib. aniga diinta awoowayaalkeeyaan haystaa, hiddo iyo dhaqanka fuqi maayo. wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah, waa diiday inuu laa ilaaha ila allah yidhaahdo. war qofkii diida laa ilaaha ila allah, war qofkii naca laa ilaaha ila allah, war qofkii laa ilaaha ila allah niyaddiisa, maskaxdiisa, maankiisa aan soo gelin, ilaahay wuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala. furihii jannada waa ka tegey marka hore, wixii ilaa agtiisa u dhowayn lahaa waa ka tegey marka labaad. dariiqii mustaqiimka ahaa oo ay dadka musalliinta ah ugu yaraan halkii maalin salaad kasta ay tukanayaan oraahdoodu ay tahay ihdinaa alsiraata almustaqiim, ilaahayow nagu hanuuni jidkaaga mustaqiimka ah. kaana waa seegay. odaygu naftu waxay uga baxday asagoo laa ilaaha ila allah ma raba yidhi, wuxuu ku dhintay asagoo laa ilaaha ila allah nacay. markaasaa alla nacay. qof allaala qofka laa ilaaha ila allah naca, hidaaye ka dhigan waaya, qalbigiisa ku weynayn waaya, sow laa ilaaha ila allah u nacaa alla u nici doona. waxaad mooddaa dhammaanteen inuu ilaahayna nacay, waxaad u malaysaa agarkeena inuu ilaahayna nacay, waxaad u malaysaa ummadda badankeeda inuu ilaahay nacay. sababtu waxay tahay rabbi ayaa dardaaran soo diray oo yidhi waxaan soo dejin doonaa dikri, waxaa imaan doona aayaad, waxaan idiin soo dejin doonaa aayaad. ee faman qof allaala qofkii raaca hanuunkayga falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun, ma cabsanayaan mana murgoonayaan. qof allaala qofkii raaca, qof allaala qofkii wadda ka dhigta, qof allaala qofkii jeclaada. faman tabica hudaaya, waa hanuunkayga, waa hanuunkan soo dejiyey, waa qur'aankan soo dejiyey, waa rasuulkan soo diray, wuxuu idiin sheego falaa khawfun calayhim, cabsi korkooda ma aha, walaa hum yaxzanuun, mana murgoonayaan. waaladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaa'ika asxaabu nnaar hum fiiha khaaliduun. intiisa beenisa hanuunka, intiisa hanuunka qaadan weysa, in allaala inta hanuun aan ka dhiganin oo waxyaabo maalaa yacni ah oo fisqi ah oo aan rabbi agtiisa khayr lagu gaarayn hanuun ka dhigta, asxaabu naar waaye, naarta asxaabteeda waaye, wayna ku dhex waari doonaan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. maanta maxaa hanuun noo ah? maxaa ummadda lagu hanuuniyaa? maxaa ummadda lagu wacyigeliyaa? maxaa ummadda lagu hormariyaa? ummadda maanta waxaa lagu hanuuniyaa heeso. waxaad maqlaysaa golooyin la yidhaahdo golaha hanuuninta, waxaa lagu sameeyaa buraanburo, waxaa lagu sameeyaa heesooyin, waxaa lagu sameeyaa fisqi, waxyaabo shayaadiine ay keeneen. waa wixii ummadda lagu hanuuninayey. waa suu rasuulku ahar ku tilmaamay, xilli waxaa la gaari doonaa ummaddu ay hanuun ka dhigan doonaan shay aan hanuun ahayn.
hanuunna aan ku jirin ducaad baa imaan doonta abwaaba jahannamay taagan yihiin way idin wacayaan hanuun bay idinkugu wacayaan waa hadyi iyo waxaan hanuun ilaahay ahayn diintiisana aan loogu hanuunayn walaalayaal wixii ka soo haray ka dhaga furaysta aayaadka ilaahay ayagaa hanuun ah dikriga ilaahay asagaa hanuun ah salaada rabbi ayadaa hanuun ah soonka asagaa hanuun ah ummadoo wanaag loo sameeyo asagaa hanuun ah dariskoo la wanaajiyaa hanuun ah cilmiga iyo diinkoo la bartaa hanuun ah masaajidadoo la camiraa hanuun ah wixii intaa wixii la mid ah aan hanuun ka dhiganin alla agtiisa qiimay ku leeyihiin ma jiro waad u jeedaa odaygii waad u jeedaa inuu yidhi ani laa ilaaha ila allahi man rabi laa ilaaha ila allah ma u baahni laa ilaaha ila allah waa ka kaaftooma laa ilaaha ila allah ma rabo nebiga sala allahu calayhi wasalam asagoo meesha taagan oo meesha fadhiya odayguna diidan yahay laa ilaaha ila allah iyo hanuunka inuu qaato yaa ilaahay ruuxdii ka bixiyey subxaana wa tacaala aad bay u fiican tahay intaan nool nahay oon caafimaad qabno kelimada tawxiidkiina afkayna inaan caado uga dhigno aad bay u fiican tahay hadalla fiican inaan afkayna caado uga dhigno subxaana allah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billaah carabka waa la bara carabku waa akhlaaq xun yahay haddaan diinta ilaahay la barin carabku waa sii daysmaa haddaan diinta ilaahay lagu abaabinin carabka waxaa u yahay shayga ugu dhibaatada badan waa haddaan la edbinin waa haddaan la qabanin waa haddaan adaaqa iyo looga dhigin caado hadalka fiican ee wanaagsan anagu in allaale intaan nool nahay hadallo kale afkeena ka buuxa hadallo kaleaan ku hadalnaa inta badan sidaa darteed baa loo baahan yahay qofku si hadhow markuu sakaraadka u gaaro wixii uu bartay carabka suu ugu soo celceliyo sidaa inaan markaa samayno oon ilaahay ka barino subxaanahu wa tacaala oo ilaahay aan ka barino inuu carabkeenna dikrigiisa ku qoyo carabkeenna dikrigiisa ku badiyo carabkeenna dikrigiisa uu noqdo mid aad iyo aad caado looga dhigo waayo ummad fara badan oo dhimanaysaa khaatimo xumo ku dhimatay sababtuna waxay tahay waxay caado ka dhigteen in allaala intii ay caafimaadka qabeen oo ay hadli kareen waxaan qiimo iyo wanaag lahayn mijinta qaadka ii soo dhiib nin baa ku dhintay masraxa asagoo ayadoo taagan oo heesaysa islaam bay nafti uga baxday kubad asagoo ciyaaraya ninay nafta uga baxday ninaa koob qamraa ii soo shuba koob qamraa ii soo shuba koob qamraa ii soo shuba markii saddexaad naftu uga baxday walaa xawla walaa quwata ila billaah wardadaa laa ilaaha ila allah nafta uga baxday wardadaa allah 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 ayagoo dhahaya xayaatada uga baxdoo ilaahay u tegey qof kasta wuxuu ku shaabuu ku duqoobaa qof walba wuxuu ku duqoobuu ku dhintaa qof kastana wuxuu ku dhintaa lagu soo saaraa qof walba cadalkiisa ka u dambeeya iyo camalkiisa ka u dambeeya ayaa lagu soo bixiyaa suu rasuulku tilmaamay sala allahu calayh wasalam axad kasta waxaa lagu soo bixiyaa calaa maa maata calayhi wuxuu ku dul dhintay wixii uu ku dul dhintay geerida mawcid lalama laha dhimashadu fasax iyo waxyaabo kaliya ogeysiis iyo digniin malaha waxay kuu soo sheegayso laakiin diyaar baa loo ahaadaa diyaar baa loo noqdaa waa loo diyaar garoobaa ayadaa waxaa laga dhigtaa wixii adiga diyaarka aad u ahayd waayo ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum geerida aad ka cararaysaan way idinla kulmaysaa rabbi agtiisaa laydiin celinayaa qof kasta waxaa loo warramayaa wixii uu samayn jiray buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu camal qaban jiraa loo tilmaamayaa oo loo warramayaa oo laga jaazinayaa oo abaal looga dhigayaa maxaa hanuunkuu ah waxaad qabanayso qalbigan wixii ku jira ayaa bannaanka yimaada camalka saalixa wuxuu ka tarjumaa qalbigaaga inuu hanuun ku jiro war waad soontaa waana salaada bani aadamkaad faraha ka qaada xalaashaad ku dadaasaa ood quudataa ummaddaad wanaaggii xaqa u sheegtaa kitaabka qur'aankaad akhrisataa qalbigaagaa hanuun ku jira qalbigaagaa wanaagsan attaqwa haahunaa meeshaanaa cabsi ku jirta suu rasuulku tilmaamay sala allahu calayh wasalam tuug ayaa taho ummadda nafta u keenay ummaddu markay tukanaan maqaayadaasaad hor fadhisaa buushkaa wasaqda ah yaad 3 dumar la dhex fadhisaa sigaarka iyo qaadkaa ku ag yaala kookakooladu kaama maqna wax allaala wixii fisqi ah gaararkaaday ku wareegsan yihiin qalbigaa xun hanuunkii baa ka baxay
nuurkii baa damay iftiinkii alla ku siin lahaa ayaa meesha laga tirtiray wax walbood dhahdo ani waa fiicanahay kayfa yahdi allaahu qawman see ilaahay u hanuuniyaa qoom kufriyey iimaankooda kadib sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala walaalayaal aan gadaal u soo rujuucno qalbigeenna aan fiirino qalbigeenna aan ogaano qalbigeenna waxa ku sugan aan koontaroolno qalbigeenna aan fiirino oo rabbigeen aan ku xirno subxaana wa tacaala war hidaaye haddaan qaadano alla agtiisaan wanaag ka helaynaa sida khisadan aan tilmaamaynoo kale nagu dhici mayso weliba ninkan hadda aan tilmaamayno waa ninkii nebiga garab taagnaa sala allahu calayhi wasalam waa ninkii nebiga sala allahu calayhi wasalam gacan ku siiyey diintan inay baahdo laakiin maxay anfacday maxayse u tartay maxayse faa'iiday hadduu asagu iimaanka la imaan waayey hadduu asaga hanuunkii nacay haddii asaga khayrka iyo wanaagga dhinac maray adeerka saasuu ku xijaabtay saasuu ku geeriyooday rasuulka indhihiisa biyaa ka soo qubtay sala allahu calayhi wasalam rasuulku waa ooyey sala allahu calayhi wasalam muxuu la oynayaa ninkii uu jeclaa yaa hidaaye la'aan ku dhintay waa la sabar geliyey cirkaa lagala soo hadlay innaka laa tahdii man axbabta adi ma hanuunin kartid qofkaad jeceshahay buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala ma hanuunin kartaa qofkaad jeceshahay maya ma hanuunin kartaa qofkaad hanuun la doontay waa maya yaa lala hadlayaa rasuulkii nebiga sala allahu calayhi wasalam yaa lala hadlayaa waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yaa lala hadlayaa waa intii rabbi qalqay midka u khayr badan rasuulkii allow sabir rasuulkii allow dulqaado hidaayada allah bixiya innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa laakiin ilaahay asagaa hanuuniyo qofkuu doono dadka muttaqiinta ilaahay ayaa og subxaana wa tacaala xaaladdaa ayuu nebigu intuu ka samri waayey haddana uu yidhi yaa cammi wallaahi la astakfirannak ilaah baan dembi dhaaf kuu weydiin doonaa allaan kuu baryi doonaa ilaahay ayaan kuu tuugi doonaa rabbiyow cafi baan dhihi doonaa istikfaar baan kuu weydiin doonaa maa lam unha canka haddaan la ii kaa reebin haddaan la ii dhihin jooji istikfaaraan kuu weydiin doonaa intaa muxuu ku dadaalaa nebi moxamed ninkaa inuu khayr helo rasuulku wuxuu ku dadaalayaa quluubta inay wanaagsanaato wuxuu ku dadaalayaa dadku inay ahlu janno noqdaan nebi naxariis badan oo ilaahay noo soo diray waaye sala allahu calayhi wasalam dhibkeenna looma soo dirin cadaadiskeenna looma soo dirin inuu mashaakilna gaarsiiye looma soo dirin wuxuu noo ahaa nebi raxmad badan waxaana loogugu soo diray ilaa raxmatan lilcaalamiin waa raxmad weli waa daba socdaa fiiri weli waa daba socdaa oo wuxuu rabaa inuu ninkan wanaag gaaro saasuu ummadoo dhan la jeclaa saasuu ummadoo dhan u ahaa annagana saasoo kalea nala ka rabaa ducaadda saasoo kalea laga rabaa mu'miniinta saasoo kalea laga rabaa dalaabaalcilmiga saasoo kalea laga rabaa dadka masaajidada jooga saasoo kalea laga rabaa xumaan hadday dhacdo qof xumaan galo qof hidaaye aan ka weyno inaan u murugoono maanta waa ku farxaynaa kan ma tukadaan leenahay kan ahlu naar waayaan leenahay kan xaalkiisaa waayaan leenahay kan dhiiggiisaan bannaysanaynaa kan waxyaabo kalaa la samaynaa saa ma aha asagoo nebiga lagu yidhi innaka laa tahdii man axbabta haddana waa daba socdaa nebi ibraahim calayhi salaam aabbihiisaa guriga ka buriyey markuu wacdiyey ee uu waaniyey hadallo fiicfiican uu kula hadlay hadalladiisa maxaa ka mid ahaa yaa abati innii qad jaa'anii min alcilmi maa lam ya'tik faattabicniiha ahdika siraatan sawiya aabbow ani isoo raac waayo cilmi baa ii yimid adi aan kuu imaanin sababtuu u soo raacaya maxay tahay wiilkiisa waxaan kugu hanuuninayaa jid mustaqiim ah ahdika siraatan mustaqiim aabbow shayطaan ha caabudin waayo shayطaanka raxmaankuu ku caasiyey aabbow innii akhaafu an yamasaka cadaabun min araxmaan fatakuuna lishayطaani waliya hadalka macaan badan ma jiro hadalka fiican ma leh waa aabbii tawxiidka hadalkiisa waa ninkii laa ilaaha ila allah darteed dab loogu riday hadalkiisa odayga aabbii muxuu hadalkiisu noqday araaqibun anta can aalihatii ya ibraahim lain lam tantahi laarjumannak wahjurnii maliya ma haddaad ilaahyaalkeena caynaysaa ma haddaad wax ka sheegaysaa ma haddaad ibraahiimow keentay inaad dhahdo asnaamtan dhagaxyo waaye waxna anfaci maayaan haddaadan ka harin haddaadan ka joogsan haddaadan isoo raacdan aad wadda aadan dhaafin dhagaxan kugu dilayaa buu yidhi laarjumannak haddana iiga bax gurigayga wahjurnii maliya
bax buu yidhi zaman dheer iga maqnow aabihii muxuu yidhi ibraahim wuxuu ku yidhi salaamun calayka saastakfir laka rabbi waa kuu dembi dhaaf weydiin doonaa aabbe arbacada waa naga soo horaysa cayda waa naga soo horaysa aflagaadada qofka aan rabno inaan diinta aan gaarsiino waa naga soo horaysa guriyaa laga buriyey waa loo hanjabay dhagacan kugu dilaa baa la yidhi xagguu aadayaa aabbiisaa ceeriyey xagguu aadi doonaa ibraahim kama fikirin meeshuu seexan lahaa kama fikirin wuxuu cuni lahaa ma ka fikirin meel allaala meeshuu ku qubaysan lahaa odagaan wuu cabsanaa weli aabba salaamun calayk waa kaa tegayaa waan kaa tegey salaamun calayka waa baryido waa aan kala tagno waa macsalaamo oo kale waase kuu dembi dhaaf weydiin doona ilaahay rabbigay wuu ilaalin waana i xafidayaa wuu ka tegey nimca ilaahay siiye subxaana wa tacaala owlaad uusan horey u lahayn baa loo hibeeyey nimco fara badan baa alla siiyey subxaana wa tacaala xaggee aadaynaa annaga haddii hidaaye hooyo aabbay noo diidaan hooyo hadday ku dhahdo xijaabka ma xihan kartid waa inaad xirataa sababtu waxay tahay waxay kuu qabanaysaa ma jiro allah ku soo dhoweyn subxaana wa tacaala ilaahayaa ku goglahayo gogol fiican kuu dhigaaya ilaahayaa waxaad jeceshaayo khayr badan ku siinaaya in allaala inta rabbi rumaysa oo camal fiican qabata kuwaasi jannaday goglanayaan sida ilaahay tilmaamay in allaala inta kufrisay rabbi diiday amarkiisana ilaahay ma jecel kaafiriinta ee in allaala inta ku kufrisa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa calaacalayaa weli odagaan naarta u sii socdo weli ka calaacala nebi moxamed aad buu ummadda ugu murugoon jiray qof allaala qofkii khayr iyo wanaag loogu sheego rabbuu u mahdin jiray qof allaala qofkii xumaan looga sheego baadi looga sheego hanuun la'aan looga sheego alluu u tuugi jiray sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ayuu u baryi jiray taariikhdii ahar baad tilmaantaa abuu hurayre qoomkiisa inay mataqaanaa diideen islaamnimada inay ilaahay hanuunkiisii khayrka ay diideen in loo soo gaarsiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam in allaala intuu weyse qaatay ee uu istaagay gacmaha kor u taagay abuu hurayre qayliyey oo dhahay waa qawmaa alla qoomkaygii waa halaagsameen muxuu u malaynayey inuu nebigu habaartamayo sala allahu calayh wasalam nebi moxamed ma habaartamo in badan ma habaartami jirin wax badan ma ahayn mid ummadda habaar iyo dhibaato u geeya ma ahayn mid ummadda in badan cadaadiya ma ahayn mid ummadda in badan naca laakiin gacmaha intuu kor u taagay buu yidhi baa la yidhi allaahumma ahdi dawsan ilaah hanuuni ilaahayow hanuuni iina keen ow kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam intaas maxaan fahmaynaa hidaayada wanaaggeeda intaa maxaan u jeednaa hanuunka alla ku siiyey khayrka iyo wanaaggiisa intaa maxaan arkaynaa hanuunka faa'iidada iyo wanaagga uu leeyahay war qofkaan hanuunsanayn masjidka ma fadhin karo war qofkaan hanuun qalbigiisa ku jirin goobaha khayrka ma aadi karo war qofkaan hanuun qalbigiisa ku jirin salaada uma taagnaan karo war qofaan hanuun qalbigiisa ku jirin kitaabka qur'aanka inuu jus ka aqriyo uma sabri karo war qofaan qalbigiisa hanuun ku jirin ilaahay inuu baryo habeenkii istaago maalmaha gobol ka mida soomo ma samayn karo intaasoo dhan hanuunkaa fududeeya hanuunkaaf jilciya hanuunkaasaa ka dhiga rasuulku markuu adeerkii ku yidhi istikfaar baan kuu weydiin doonaa haddaan la iga kaa reebin waa laga reebay maxaa looga reebayaa ninka dhintay hanuunkuma dhiman maxaa looga celiyey qofkaa dhintay hanuun qalbigiisa kuma jirin maxaa loogu diiday arrimooyinkaasaa loogu diidaya war qofku mar allaala markuu ilaahay hortegaayo waa inuu qalbigiisa hanuun ku jira jannada ilaahay baa lagu soo dhowaynayaa khayrka iyo wanaaggaa lagu soo dhowaynayaa wixii ilaahay amraa lagu soo dhowaynayaa wax allaala wixii indha arag dhaga maqal qalbi bani aadamnaan ku soo dhicin ayaa lagu soo dhowaynaa hanuunka lama iibsadee ilaahay aan ka barino hanuunka lama iibsadee ilaahay aan tuugno hanuunka lama iibsan karo meelna lagama qaadan karo war ninka hantiilaha ah hantida badan haysta xaya cala asalaax xaya cala alfalax maqli waayey kaasaa iibsan lahaa haddii la iibinayo kaasaa khayr ku heli lahaa haddii khayr lagu gaaraayo abijahal baa qaadan lahaa haddii iska qaado ay tahay ilaahay baa rag ducafaa siiyey dad aan xoolo lahayn siiyey dad aan masaakiinna siiyey dad fara badan ashraaf sheeganayey kibri iyo isla weyni ku jirtay dhahay annagu ashraaftii quraysheed baanu nahay madaxweyntii quraysheed baan nahay ayaa seegay oo heli waayey oo qaadan waayeye ilaahay aan ka barina subxaana wa tacaala hanuunka salaadda haddaan u soo noqono salaadda adigoo tukanaya ma aha adoo qamro cabaaya
ma aha adigoo suuqa fadhiya, ma aha adigoo kabaa'ir iyo dembi ku jira, adoo rabbigaa hortaagan, adi iyo rabbigaa baynaka wa bayna alqibla uu yahay, yaa lagu leeyahay ilaahay hanuun weydiisa subxaana wa tacaala. ilaahay hanuun warso oo maxaad leedahay ihdina i hanuuni ilaahayow الصراط المستقيم igu hanuuni jidka mustaqiimka ah. see lagugu hanuuninaa? masaajidkaad soo gashaye, waad soo weyse qaadataye, safka horaad ku jirtaaye, salaadii baad tukanaysaaye. meesha waxay tilmaamaysaa hanuunku inuu faa'iido weyn leeyahay. kii qamrada cabaayey, kii dadka dilaayey, kii bangada watee, dadka ummadda nafta u keenee moobilada ka qaata, midka dhibaatada ku jira, gabadha caariyadda ah oo jidkaa maraysa, midda ummadda ilaa subxaana wa tacaala diintiisa looga dhaqmi la'yahay, kuwa xagga dhig. kii dukanayey ilaahay hortaagnaa yaa la dhahaa ilaahayow hanuuni dheh, ilaahayow i hanuuni. meeqaad tukanayso maanta ku jirta mataqaanaa goobaha qayilaadda? war meeqaa salaad tukanaysoo masraxa saaran? war meeqaa salaad tukanaysoo xijaabanaysay maantana xaalkoodu markaad aragto ay tahay wax ilaahay laga magangalo subxaanahu wa tacaala. ilaahay hanuunka asaa iskale, gacantiisay ku jirtaa. cid allaala cidduu doonuu siiyaa. saan ma ku qaatimaysan doontaa? ma lagu cirib xumayn doonaa? dhibaatayir gebageba maa kuu dambayn doonto? lama oga. walaaha macbuudka ah oo asaga ma ahee mid kale uusan jirin ayaan ku dhaartay buu yidhi nebiga. axad idinka mid ah wuxuu samaynayaa camalka ahlu naarka. dadka ahlu naarka camalkooda waa sida dadka u muuqata. waxuu samaynayaa dadka ahlu naarka camalkooda ilaa asaga iyo naartay isu jirsadaan ilaa diraac, dhudhun maahane wax kale. aad bay ugu dhowdahay. waxaa la leeyahay ninkan hadduusaan kow ku dhaho ee uu ku dhintay waa ahlu naar. waa camalka ahlu naarkuu samaynayaa. hal taakaa u jirta ilaa diraac iyo dhudhun maahane. markaasaa waxaa ka qaalib noqonaya kitaabkii loo qoray asagoo hooyadii caloosheeda ku jira oo ah inuu yahay qof ahlu janno ah. markaasaa ilaahay hagaajinaya, ciribtiisiiba isbedelaysa, qof fiican buu noqonaya. hanuunkii hidaayada ilaahay qalbigiisa gelina. qaadkii buu nacayaa, xumaantii buu nacayaa, zinadii buu nacayaa, tuuganamadii buu nacayaa, masaajidkuu jeclaana, qur'aankuu jeclaana, diintuu jeclaana, aadaankuu jeclaana, mu'miniintuu jeclaana. masaajidkuu ku soo xaroonaya asoo xaalkiisu sidaa yahay oo arrintiisu ay saa tahay ayuu ku dhimanayaa. markaasuu jannada ilaahay gelaya subxaanahu wa tacaala. yaa soo haray? waxaa soo haray mid samaynaya camalka ahlu jannaha sida rasuulku tilmaamay sala allahu calayh wasalam. oo dadku waxay leeyiin alla wanaagsana, saa hadduu ku dhinta jannaduu gelaya. asoo xaalkiisu sidaa yahay ilaa asaga iyo jannada aysan isku jirsanin ilaa diraaci dhudhun ma ahane. dhudhun jannadii aad ugu dhowaanaysaa. waxaa ka qaalib noqonaya kitaabkii loo qoray asagoo hooyadii caloosheeda ku jira, oo ah inuu ahlu naar yahay, oo ah inay shiqaawo u dambayso shaqaawanimo, inay u dambayso ahlu naarnimo. ninkii baa isrogaaya, waa isbedelaya, hanuunkii baa laga tirtira, iimaankii baa baaba'aya, wixii khayrkii qalbigiisa ku jira baa damaaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ma dulmiye, waa wuxuu asagu kasbadaye. waa isrogaya. fayacmalu bicamali ahli الnaar. dadka ahlu naarka camalkooduu samaynaya. gebagabadii iyo natiijadiisaa xumaanaysa. saasuu ku dhimanayaa, saasuu markaa naartii ku gelayaa. marka ma ognin si xaalkeennu noqon doono, ma naqaana dadka arrinteena say ku gebagaboon doonto. taasaa kaliftay inuu rabbina amro mar walba oo aan salaad ku jirno inaan dhahno ihdina الصiraaط الmustaqiim. ilaahu jidka mustaqiimkaa nagu hanuuni, ilaahu jidka mustaqiimkaa nagu dug, ilaahu jidka mustaqiimkaana waafaji, ilaahu jidka mustaqiimkaana raacsii. ma raaci kartid ilaa inuu ilahay ku raacsiiyo ma ahana subxaana wa tacaala. ma mari kartid ilaa inuu ilaahay ku marsiiyo ma ahana subxaana wa tacaala. ma jeclaan kartid inuu ilaahay ku jeclaysiiyo ma ahane. idan xiriirka ilaahay ha goynin weligaa, xiriirka ilaahay xooji weligaa, xiriirka ilaahay ku soco weligaa. saasuu ilaahay tilmaamaa subxaana wa tacaala. siraaط almustaqiim way sii fasirayaan, way sii codsanayaan. maxaa waaye jidka ay rabaan? yaa waaye dadka jidkaas ay maray ay codsanayaan? صiraaط aladiina ancamta calayhim. ilaahay kuwaad u nimcaysay korkooda jidkoodaan rabnaa. jid kasta iskama rabno, wallaahi ma tamanino in badan dadka fiicfiican jidkooda. waxaan tamaninaa dadka kale adduunka ku tawray, ku hormaray, waxyaabo kale ku gaaray jidkooda inaan raacno.
taasaan tamaninaynaa, saasaan jeclaynaynaa. ninkan waxbuu yeeshay, maxaa u yeelan weysay? ka daba tag. ninkan intaasuu tabcadaye, tabca adigee ka daba tag. ninkan intaasuu dhistaye, dhisee ka daba tag. ninkan intaasuu yeeshee, yeesho adigana. gabadhan intaan dahabay tumatee, tuma adigana. maba nagu jirtaba ilaah jannadaysa dahabka yaala inuu ilahay noo xiro subxaana wa tacaala. maba nagu jirtaba qusuurta iyo sararta ilaahay jannada uu dadka ugu dhisayo inuu ilaahay noogu dhiso subxaana wa tacaala. tanaa nafteena ku jirta, tanaa hawadeena ku jirta. intuu hanuun maqan yahay, intaana waa naga maqnaanaysaa. wixii khayr ee janno laga helaaya waa naga maqnaanaa. inta hanuun qalbigeenna ku jiro waa tamaninaynaa, waana jeclaysanaynaa. ilaahayaana ka baryaynaa inuuna siiyo intaa mar walba hanuunka qalbiga ku jira. kaasaa markaa keenaya walaalayaal, taasaa qofka ku kalifaysa inuu ku helo ihdina الصiraaط الmustaqiim صiraaط aladiina ancamta calayhim. kuwii aad korkooda u nimcaysay, kuwaas jidkoodaan rabnaa ilaahayo. waa kuwa ilaahay u nimceeyey kuwee waaye? nina rasuulka u yimid salى الlahu عalayhi wasalam. mar allaala markuu u yimid ayaa wuxuu yidhi, rasuulkii ilaahayow aad baan kuu jecelahay, laakiin nasiib wanaag waxaa dhacaysa aakhira marka la gaaro in meel sare lagu geeyo, janno sare in lagu siiyo, hoos annaga aan jirno adiga meel sare lagu gaarsiiyo. sidaa darteed majalistaadaan rabnay inaan kula fadhiisaan jeclaa, inaan micigaaga ahaadaan jeclaa. waa hanuunka qalbigiisa ku jiraa weyn. hanuunka qalbigiisa ku jiraa wuxuu kalifay inuu tamaniyo nebi moxamed aakhiro micigiisa inuu la noqdo sal allahu alayh wasalam, inuu la noqdo, inuu nebi moxamed darajadiisa iyo meesha uu joogo uu tamaniyo. hanuunka qalbigiisa ku jiraa siiyey. hanuunkeenna xun iyo baadida nagu jirta iyo hanuun qalbigeenna ka baaba'ay iyo nuur qalbigeenna ku jiray oo nagala ka tirtiray yaa kalifi weysay inaan hamigaa sare yeelano oo nebiga micigiisaan ku noqon lahayn aan markaa ku dadaalno. rasuulku ninkii wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayh wasalam, ama ilaahayba uu soo dejiyey, waman yuطic illaha wاrasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina wالصidiiqiina wالshuhadaa wالصaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa. war qofkii ilaahay ateeca, rasuulkana ateeca, qofkii ilaahay warkiisa maqla oo ka dambeeya oo raaca, tixgeliya, nebigana ateeca oo hadalkii ilaahay u soo diray. ilan qofkii rasuulka ateeca faqad aطaaca allah, man yuطic الrasuul faqad aطaaca allah. ninkii rasuulka ateeca ilaahay buu ateecay. nebiga wamaa yantiqu can اlhawaa, waxaan uu noo sheegay ilaahay baa u soo dhiibay. haddaan ateecna waxay la mid tahay annagoo ilaahay ateecnay subxaanahu wa tacaala. man yuطic qofkii ilaahay ateeca rasuulkana ateeca faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim. ihdina الصiraaط الmustaqiim صiraaط aladiina ancamta calayhim. salaada laftigeeda marka aan tukanayno ihdina الصiraaط الmustaqiim inaan iska gudubnaa suuragal ah, aanban la soconinba, aan ogeyn dadkaa loo nimceeyey waxay yihiin qiraa'o keliya waa iska akhrinaynaa. in yaroo ilaahay khushuuc siiye maahna subxaana wa tacaala. khushuucda salaada la tilmaamayo maxay tahay? waa inaad xabad ula socoto. waa in mar allaala markaad wax akhrinayso macaanida ay tilmaamayso aada la socoto oo aad fiiriso. ninkii saxaabiga wuxuu dhaha nebiga gadaashiisaan ku tukaday, mar allaala markaan ku tukaday yuu salaada nagu dheereeyey. hadduu soo maro aayad tasbiix waa tasbiixsanaa, ilan wuu la socdaa sal alla alah wasalam. hadduu soo maro aayad taxmiid waa mahdina ilah subxaana wa tacaala. hadduu soo maro aayad janno waa istaagaa ilaahu janno weydiisanayaa subxaana wa tacaala. hadduu soo maro aayad cadaab waa istaagayaa, ilaah buu ka magangelaa. waxaad fahmaysaa wuu la socdaa sala allahu calayh wasalam. laakiin ihdina siraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim oo wax laga wado iyo waxay tahay iyo wax loola jeedo iyo wixii la rabay aan qalbigeenna ku sugnayn, taana way keeni kartaa hanuun xumida. saa darteed walaalayaal, si salaadeennana ay u noqoto midii ihdina siraaط almustaqiimta nagala aqbalo, aan la socono, khushuucna aan ula tukano. sababtu waxay tahay hadduu tukanayaa ihdina siraaط almustaqiim buu leeyahay, siraaط aladiina ancamta calayhim. jaranjarada markuu ka dego iyo hanuunka ugu dambeeya, maxaa loo aqbali waaye? maxaa hanuunka loo waafajin waayey? kow, jaranjarada uu ka degayo ka bilaabaya xanta. jaranjarada labaad qabyaaladda. jaranjarada saddexaad gabadha jidka maraysa. ta ku sii xigta suuqa xaran cunteeda. hadduu lahaa ihdina siraaط almustaqiim, ayna walaalayaal aaway
haddii ilaahay naga aqbali lahaa ihdina الصiraaط الmustaqiim dhab ahna aan dhihi lahayn khushuuc iyo qalbigeena uu ku jiri lahaa ilaa guryaha aan ka tagno oon ka soo noqono oon ka dhimano yaa ilahayna xafidi lahaa subxaanaه wa tacaala. hanuunka dadka waa ilaaliyaa, hanuunka dadku waa xafidaa, hanuunka dadka khayr buu tusiyaa ee shar ma tusiyo. maxaa aayad qur-aan lagugu kari la'yahay ihdinaa baa tiriye, maxaa ilaahay ka cabso lagugu kari la'yahay siraad almustaqiim baad ku dartaye, maxaa lagugu kari la'yahay xaraasha ku dadaal oo ilaahay ka cabso oo khayrka ku soco, muslimiinta faraha ka qaad, mu'miniinta ha dhibin, ha shirqoolin, dhib ha gaarsiinin. siraad aladiina ancamta calayhim baa tiriye. waxaa intaa kalifi karaa waa kor qaad la'aan, walow korna loogugu qaadi lahaa, macbuudkiina khalqaynana loogugu geyn lahaa, ilaahay waana hanuunin lahaa, hanuunkuna waa noo socon lahaa, waana naloo badin lahaa. wاladiina اhtadow zaadahum hudaa. intii hanuunta ila hanuun buu ziyaadiyaa subxaanaه wa tacaala. hanuun buu ilaahay u kordhinayaa, hanuun fiican buu ilaahay siinayaa subxaanaه wa tacaala. ilaahay nuurka hanuun buu ku tilmaamay, waa nuur. wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina. ruux, waxyiga ruux baa la yidhaahdaa, qur'aanka ruux baa la yidhaahdaa. sababta waxay tahay ruuxduu nooleeyaa. jasadkeenna wuxuu u baahan yahay waa biyo iyo baad, cunto. sababtu maxay tahay? dhulkuu ka yimid. minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa. jasadka marka waa in biyo la siiyo subxii. maxaana la yidhi 5 litir sooma subax kasta marka la soo kaco. aawa 5 litir oo iimaan ah, aawa 5 litir oo hanuuna walaalaya, aawa 5 litir oo ah ruux aan ruuxdayna ku noolayno. ma jirto. ruuxdii waa ku dadaalnay, jasadkii waa ku dadaalnay, waa la miisaamay, waa la cabiray, kora loo qaaday, wixii dhibaya laga dhaafay. iimaankii aaway, iimaankii aaway. iimaanka iyo ruuxda lagu dadaali jiray, meeshaan jasadka ku dadaalayno. ruuxda hadday fiicnaa jasadka asagaa fiicnaanaya. rasuulkaa markhaati kacoo yidhi jidka bani aadamka waxaa ku jira waslad hilib ah, cad yar waa. hadduu hagaaga jirkaa hagaaga, hadduu xumaadana jirkaa xumaada. intuusan jirku xumaanin ruuxda xumaata, qalbigaa bukooda, qalbigaa jirada. qalbiga markuu jiraduu jasadku jiradaa. sidaa darteed baa waxaana laka rabaa marka inaan aayaddaa fiirino. wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina. ruux amarkeena xaggiisa ka ahaaday, xal ilaah buu ka yimid. laakiin dhulkan wixii ka soo baxa ansalaatada iyo mooska iyo cambaha iyo waxaa jirkaa u baahan waa la siiyey. tii ruuxda aaway, ilah wuxuu tilmaamay subxana wa tacala ruuxan min amrina. ruuxdu way noolaanaysaa haddii qur'aanka lagu akhriyo, haddii salaada lagu tukado, haddii lagu khushuuco, haddii rabbi lagu baryo, haddii lagu soomo, haddii salaada si fiican loogu tukado, way dhaqdhaqaaqaysaa, way kobcaysaa, way weynaanaysaa. iimaanku waa ziyaadaa, marna waa nusqaamaa. wuxuu ku nusqaamaa macaasi, wuxuu ku ziyaadaa taaca ilaah subxaanaه wa tacaala. intaa taaca alle ku jirta iimaankaagu waa kobcaya. marka qofku iimaan fiican uu haysto oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ka cabsanayo, hadaayadii hanuunka u haysta maxaa lagu miaalaa? kalluun ama malaay biyo ku jira. maanta dhan saas uu ciyaara malaayg markuu badda ku jira sooma xarakayna, banaanka usoo bixi, bal xagga ku tuur. asoo sakaraada arkaysaa, asoo dhimara baad arkaysaa. waayo wixii baa ka maqan, wuxuu ku xarakayn lahaa. annaga ruuxdeena waxaa ka maqan iimaankii ay ku dhaqdhaqaaqi lahayd, waxaa ka maqan iimaankuu kor kugu noqon lahaa. markaasay ummaddii hore waxay raadin jireen aaway iimaan, xaggee ka helnaa? tacaalow tacaalow nu'min saaca, saasay dhihi jireen. warkaalay hal saac ilahay aan rumayne, hal saac xataa nooga dari mayse. maxay ka wadaan? intaan fadhiisan aan alla xusno, ila iimaankiyaa ziyaadaaya. inta aan fadhin aan ilaahay toogno subxaana wa tacaala, iimaankiyaa kobcaaya. intaan fadhin aan tasbiixsano, iimaanka waa ziyaada. tacaalow nu'min saaca. waxay naftooda uga cabsanayaan nifaaq. ibn abu mulayka muxuu yidhi 30 saxaabi baan la kulmay, mid kastee naftiisa nifaaq uga cabsanaya. waa 30 ninoo saxaabi ah. nin kasta wuxuu isleeyahay amaa munaafiq tahay, war amaa nifaaq kugu jiraa, amaa munaafiq tahay, amaa saan tahay. wax laga cabsada waa yahay, wax laga baquu yahay. saa darteed baa ilaahay subxaanaه wa tacaala kitaabka qur'aankaas saasuu ku tilmaamaa. hanuun yar haddaad la timaado, ilah waa ku ziyaadnaa subxaanaه wa tacaala. inahum fidyatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan. hanuun baa u ziyaadinay. la imow adi allah kuu kordhinaye, laakiin xaggaasaa iska fadhina, saasaa iska ahaana, xumaanteedaan dhex dabaalana, baadilkaygan ku dhex jira, saasaa weligay ku socona. ma aha walaalayaal.
waxay khayrku iyo wanaaggu ku jiraa wuxuu yahay inaan hanuunka raadsano oo hanuunka dalabno oo ilaahay ka barino inuu ilaahayna siiyo subxaanahu watacaala inuu ilaahayna siiyo cilmi darida way keeni kartaa qofku inuu jidka mustaqiimka raaci waayo waxaan isku guubaabinaynaa cilmiga barashadiisa cilmiga waqti la siiyo walaalayaal mar walba oo cilmi aad sii ziyaadsato oo cilmi kuu sii kordho ku camalfalkiisii khayrkiisa taqwo ilaahay ku kordhaysa subxaanahu watacaala ilaah muxuu leeyahay subxaanahu watacaala wattaquu llaha wayucallimukum allah war ilaahay ka cabsada alla cilmi buu idin bara subxaanahu watacaala maxaa laga wadaa hal xaraf haddaad meesha ka faa'iidaysato oo aad la baxdo ku dhaqan waxaa kuu kordhaya cilmi kale cilmiga laguu tilmaamayo waan bartay waa akhriye ma aha waa ku dhaqmay waaye waa raacay waaye waa sameeyaa laga wadaa laakiin qofaad arkaysaa qur'aankii buu dhameeyey waa xaafid tafsiirkii buu ku daray axkaamtii qur'aanka saxiixayn iyo sunan wax ka maqan ma laha wax ka maqan ma leh akhlaaq lagula dhaqmo ma laha agtiisa haddaad fadhiisato waxaad is leedahay maxaa kusoo fadhiisay agtiisa waxa ka soo baxaya waxa uu samaynayo suu u dhaqmaayo suu u hadlaayo waa laga cudubilaysanayaa wax u dhiman oo cilmina ma jiro haddii la fiiriyo marka cilmi kee cilmi ah cilmiyow maxaa tahay cilmiyow maxaa lagu yidhaahdaa cilmi waa qofka markuu cilmigu barto xarafka uu barto dhaqangeliyaa loola jeedaa saasaa laga wadaa markaa le cilmi baranaysaa nebiga sala allahu calayh wasalam wax badan oo badan ayuu ka magangeli jiray ilaahay cilmi aan nafci lahayn weydiisan jiray cilmi naafica oo waxtar leh oo nafci markaa leh taana waa shay muhiim ahoo loo baahan yahay dhallinyarada cilmiga aada ugu dadaala fadhiga iska daaya sheekada malaayacnigaa ka baxa intaad meeshaa ku sheekaynayso meel diin lagu baranayo tag hal xadiis ka soo faa'iidayso inta malaa'ig ay kuu ducaynaysaa cadadi xisaab ma laha inta ilaahay khayr iyo wanaag uu ku siinaayo tiro iyo cadad ma laha 3 nin baa masaajidka nebiga soo gashay nebiga saanoo kaloo khudbo u akrinaayey dadku u xadiisaynaayey ummaddu waa fadhiyeen 3 nin albaabkaasay soo istaageen nina intuu soo qooraansaday saa u soo fiirfiiriyey furjo iyo meel furan buu meeshaa ka helay suu u soo socday buu soo dhex fadhiistay kii labaad dadkuu fiirfiiriyey wuu xishooday gadaal iyo derbiga gadaal u fadhiistay kii saddexaad saasuu u fiirfiiriyey kobihiisuu qaatay waana baxay dacaskiisa intuu isku dhudhufsaday uu bannaanka dhigtay hore usii baxay nebiga waa dhameeyey sala allahu calayh wasalam xadiidkiisa 3 nin ma idin sheegaa buu yidhi 3 nin xaaladooda ma idin sheegaa haabay dheheen saxaabada kii koobaad faawa allah ilahay buu usoo dumay cilmiga iyo diinka iyo qur'aanka alla meesha laga akrinaayey yuu dhexda ka soo galay waa soo fadhiistay alla soo dhoweeyey subxaanahu wa tacaala ka waran qofku ilaahay soo dhoweeyo yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan muttaqiinta ayagoo wafdi ah ilahay xaggiisa loo soo dhoweynaya subxaanahu wa tacaala ariboorka waad ka aragtaye markay madaxii soo degayso waa tamaninaysaa allah maxaad kaasoo kale u noqon weysa maxaa madaxtinimada la isugu dagaalooya in saasoo kale roog loo fidiyo sooma markaasaa qofka waa dhoweynta bani aadam ka waran ilaahay aawi subxaana wa tacaala see noqonaysa hadduu ilahay ku soo dhoweeyo subxaana wa tacaala ilaahay qofkuu soo dhoweeyo yaa dhaqaajin karaa qofkaas waa soo dhowaaday cilmiguu u soo dhowaaday intaad diin u dhowaata alla ku soo dhoweynaa talib cilmiga dadaala yaa soo haray kii labaad waa xishoodoo gadaal buu iska fadhiistay qaara waxay ku fasiraan in la cadaabuu mutaystay laakiin ilaahay baa ka xishooday suu u xishooday kaana waa sariigtay fastaxya allahu canhu ilahay baa ka sariigtay asagana waa laga xishoodoo jannada ilahay baa la siiyey yaa soo haray kii saddexaad ee iska baxay soo ma aha kaana waa jeestay faacrad allahu canhu ilahay yaa ka jeestay subxaanahu wa tacaala war haddii ilahay naga jeestay intay aadayna walaalayaal haddii ilaahay markaan saa ugu socono naga jeesto uuna naco idinma rabina dhaho yaana soo jeclaana yaana soo dhowaynaaya adduunka dadkii nagu soo dhowaynaayay aaway dhammaan way qaawan yihiin xoolaheennii aaway dhammaan way baaba'een qabiilkeennii aaway kulli waa gariirayaan aaway ilmihii xaasaskii waa kaa dhuudhuumanayaan ilaahaygii aad caabudi lahayd oo aad ka jeesatay oo diintiisii hanuunkiisii aad ka jeesatayna
وكاجستي قف الله لا قفكم إلهي كجستو وقف خساري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قفكي الدين كان كجسته هنون كان راعي وايا نولو العرير يكون ولانا من نصنينه صالح أهانينا قعوتني من اللي جيره دبل اللي جيريا مشاكل اللي كسبنانينا قرمنا صنينا ولا ليا وحنا صلهين ونرش إنه ونكسنان لهين هذا إلى الدين كيس قبص لهين إلا حدنا ممو قطع حتى صفاء كتاب إله لو قادنا أنت صال باباي ولا دباتوبي ومشاكل لا كل مي ولي واسيس عطا بعدي فقاشا لقاسي قاضية وماشى أقدر ولا ليال سادرت عن سوجي السنو قفكي كجيست لكن فإن له معيشة ضنكا وأدونك آخرنا ونحشره يوم القيامة أعمى إن ضل أسوء أهلكينيا إن ضل الآن قالوا لي رب لما حشرتني أعمى من كان في هذه الدنيا أعمى وهو في الآخرة قفكي أدونك إن ضلك آخر إن ضل بكون قنا إن ضلني مضى هدي إن ضحك أتقطك حتى وينقون ويان إن الدين كله أركي وايو فين اللي له أركو إن ده حق اللي هو شقينين شر اللي هو شقيه إن ده آخر أن اللي هو آذي الدول اللي هو آذي يهضون نقضه إن ده لا واي مركزوا إلهي آخرنا أصدقوا إن طال لكينا وبدعونا ربي لما حشرتني أعمى أصاب الدعوة قبل إذا ما حين دول يمكنت أنا إن الله وقد كنت بصيرا وعلى أركي جريه جوابت محي نقونيسا أتتك آياتنا فنسيتها إن الله أنت وآيات كلا وأدي المانت إن الله أنت والدين توتكتكت إن الله أنت وهنونك وتكلي حتى أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنصى ساسا لقوه الماما نارتا لقوه الماما الله وحمه المامي سيسا لو جاسيي إلى سبحانه وتعالى هنونك نورك ونوسو دجي قلبي أنك بحسنه أن قاضنه قعما أنكو قبصنه إنت أدونك لقتين هنونك وشيء في عن خيري وناكنا له إلى حقه وحنك بريئنا وحقنا وافنجيه طاعدي دينت إلهي هنوصغو هنون كان نورك إلهي قلبي أنا كما قضيه هنون كان نورك إلهي هنصيه إلهي دتكو هدية أن أسي الله نقدره إن الله لإنت هنون هيسن هنون خير خلا الله سيه أنت هيست الله أزياديه أنت حنوصل عافمات تام الله سيه أنت قربيس قربض الله كقاضي أنت دباتي سببك الله كفيده أنت حبسين نوجرت الله نوقصه صار إن الله لإنت أولادي حنوصل إلهي عافيه إن الله لإنت أولادي كفس هذين الله أسوه هنونيه أنت أهنونسين الله أزياديه صلاة خير كي دينت الله نقو أنفعه شر الشيطان الله نقبته إلى سبحانه وتعالى شر الشيطان الله نقبته وح الله لوحي المسلمين تدباي الله كعليه وح الله لوحي فرحة قلنا يا الله سيه إلى سبحانه وتعالى علمي جينا عقل جينا عافمات جينا حولينا كل الله إذين بركيه صامي أتسوق الدين وأتسوق الدين كوب كان خير كأهل ميزان عصماتك الله إذين صاروا أنت ماشي في الإسين أو أتسوقيسين وأدقيسين إلهي دين بداف الله إذين كقدقه ربي سبحانه وتعالى وحد كفر حضانه خير الله إذين سي الدنيا آخرة ربي دين بيجنا هنو وضع دافو خيرك وناجن الله نوافجيه دمر كان الله نو إصلاحيه حجابك حشودك وناجيس الله فهمسيه أنت سوق النوجة جرتين نجبة يودي وأيك من الله نوسه هنونيه أنت مساجد كجرت خيرك وناجي جعلنا إله جنة الفردوس وكسر دويو صار خير كان المساجد كان هو كل مينا إله جنوين كيس فردوس نعيمة إيميله لمنك الله نبو كل ميو اللهم آمين اللهم آمين وبالله التوفيق والله